baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan bilaadaadini. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن ما قدرت إيقاعها اللي جم دلهم بين البعد جوكتالي مرحلة البعد اللي قد أول سال هالكل وكلالك يوتيوب زكي قرن قال هالو حد أول سال هادسل بودكاست اللي قلت رجل لي دبعا إلا اللي هذا الله للشة صحابة بركة الرسول كان محمد اللي بتقولي الحريص كركي ساعة يسدو كلا علماء ديلت إسلام ك barbaarintoda iyo sida markaa ay ku soo islaameen guulihii iyo jabkii markaa dagaaladii ay galeen saxaabadii rasuulka iyo sidoo kale culimadii diinta islaamka iyo sida markaa diinteena suubana islaamku ay halkan ku soo gaartay ayaa markaa uga hadli doonaa podcastgal wuxuu la noqon doonaa mid taxala ah hagaag toddobaadkan waxaan podcastgal markaa raadsan ku soo qaadan doonaa قصة مركا الصحابي سعيد بن عامر مركا كدورتي آخره صحابي قال طبعا القصة عجيبة مركا لها أيال سوق دولا برامج كلا وحاجة لقيب قليا محمد حسين محمد سلو وما حسنتها ذكري قرن وبرامج كيراتسن محمد تضبط كلو حميس كيلو صار قصة الصحابي سعيد بن عامر oo dabcan lil geesi ah oo ka mid ah saxaabadii rasuulka la nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee bal marka hore waxaad looga sheekaysaa barbaarkiisa iyo sidoo kale islaamnimadiisa ka hor وما سنت زكريا سعيد بن عامر الجمحي الله سعيد بن عامر وانين آخرتي سكدورت الدنيا دي وحونا أها نين الله يرسولك سكدورت وحي كصهرة hadalka waxaa dhahay dadka taariikhyahanada oo qoray Saciid nin dhalinyaro ahay wuxuu kamid ahaa kumanaankii kun ee deegaanka Tanciim la lahayo maka banaankeeda isku soo baxay oo Tanciim banaankeeda isku soo baxay iyagoo ajiibaya hadalkii ay Quraysh madaxdeedii isku yeereen kadib banaankii waxa ay gaaladii Quraysh waxay soo qafaaleen asxaabigii jaliilka ahay Qubayb ibn Adi Allah karaali noqday سعيد وحو هاينين dhalinyaro aad u xoog badan waqtiga oo dhalinyaronimadiisii ahayd wuxuu kamid ahaa dadkii kumanaanka kuna soo baxay wuxuuna kamid ahaa dadkii soo jiiray ilaa uu ka yimid madaxweyntii Quraysh oo gaaladii Quraysh madaxweyntii hogaamiyaashooda meeshooda makaankooda markay imaadeen Saciid wuxuu indhihi ku arkay asxaabigan jaliilka Allah oo aqbalay shahiidnimadiisa waa Qubayb ibn Aamir al-Adi oo xiran geed ku xiran oo gacmaha ka tiimeysan kadib ay gaaladii caruurtii haweenkii dhammaan dadkii heer maka ee fagaaraas ay joogaan Saciid markuu arkay wuxuu arkay Qubayb oo dhahayo hadii ay dhii ongolaataan inaa dukada laba rakaco markaas gaaladii Quraysh waxay dhaheen duko Saciid wuxuu kamid ahaa marka dadkii arkayay salaadii oo dukanayay asxaabga weynaa Qubayb ibn Adi aad ayuu ugu saamooway salaadii markuu arkay sidoo uu dukanay deganaanshaha ka muuqatay ما هينين موقنين للدلاء عبسي ما هين كموقنين نين دقن جبي دقن أيو كدو كان هاي صلاة دي سلا برا ركعة مركو صلاة دي كبحي وحده هدي آدان لينين إنا صلاة عبسي درت غيري درت إنا كعبسانايو الصلاة ديري صلاة هدي إن يدي نسو قلين سعيد وحوك عيان قبيب وحوك عبسانا ديل كينا كدب وحيب بلابين قريش إنا دهان إيه حران إيه بلابا هيلفكيس إني عد وجرام يجوا ده هاي مجاعش هاي مكان كأجوكتو أدينا عن نبض النبي محمد عليه السلام له بدله بركاسولي والله مايا إسكت هاي أنا إن أنا بدي هيل كيجي إني قضح كمده أي مد النبي عليه السلام مجعلي مركاسي قال دي وحكوا قيلنا ديلا dadkii markaa fagaaraha joogay oo dilka goobjoog u ahaa ha dila dhahayeen waxayna u dileen si arxan ka baxannimo ah inkastoo Saciid aad u arkay asxaabigan oo la dilayo cad loo jaray hilibkiisa oo waran iyo waxa ku dhacay wax walba ay soo tuurayaan gaaladii sababtoo dad meel barxad weyn ahayd marka dad badan dilay dil jimaaci oo dil oo la dilay suuqeetu xiran dad badan dilay asxaabigan محمد قصداسي oo dabcan Qubayb iyo markii gaaladii Quraysh ay soo qafaasheen
oo dabcan التير lagu xiray maxaa la yiraahdaa jamaahiir ama kumanaan qofood la soo wacay oo dadka deegaanka ahaa xukunkaas markaa lagu fuliyey dabcan Saciid bin Caamir al-Jumhi way saameysay dabcan saameynta ay ku yeelatay qaybaha dambe ayaan daawadayaasheena ugu sii gudbin doonaa waa hagaag waxaan rabnaa in markan aan eegno bal islaamnimadii markaa Saciid bin Caamir al-Jumhi iyo sida markaa uu ku soo islaamay dilkii kadib gaaladii Quraysh way soo laabteen magaalada Makka ku soo laabteen dhacdo waxay dhacday aad u weyn ah zamankii waqtiga isku ma sheega laakiin ninkan dhalinyarada ah asxaabiga Saciid ibn Caamir al-Jumhi maskaxdiisa kama ayna baxin mar walba markuu soo jeedo iyo markuu hurdaayo mar walba ku qaribi jiray sababtoo wuxuu soo xasuusan jiray asxaabiga Qubayb ibn Adi sidoo dilay iyo deganaanshaha ka muuqatay iyo sidoo salaad u dukanaa iyo hadaladii oo dhahay waxay ku noqdeen saameyn weyn ay ku yeelatay mar Allah markoo oo jiifo oo qoriyoon jiray markuu soo jeedan mar walba niyadiisa ku jiray marka saameyn weyn ay ku yeelatay halka Quraysh gaaladii oo dilka ka qayb ay iska iloobeen wixii dhacay dagaaladii dhacay wixii kan zamankii ay iloosay laakiin ninkan waxay ku noqotay saameyn asxaabiga Allah karaale noqday saameyn ay ku yeelatay mar Allah marka oo soo xasuusto mar alla markuu qalbigiisa ay soo gasho asagoo jiif asoo hurdaa saameyn ku wuxuu ka fikiray asxaabiga wax sida u muuqato deganaanshaha salaadisa u dukaday hadalada u dhaxay iyo walwalka aan ku jirin ay Quraysh u dilaayeen waxaa jirtay Saciid bin Caamir al-Jumhi Allah karaale noqday maalin maalmaha kamida oo dabcan bulshada inta ka dhex istaagay oo maxaa la radaa shaaciye islaamnimadiisa bal taas idin ka waran waa maasantahay Zakariyo Saciid markaas ka hor wuxuu bartay oo ka bartay dilkaas saddex arimood wuxuu bartay waxa in aqeedada iimaanka aqeedada ay leedahay qofka markuu wax aaminsan yahay sida aaminaandiisa aan meel aan wax easy aan ahayn qofka markuu wax aamino sababtoo ah asxaabiga wuxuu aaminsanaa diinta islaamka markuu wuxuu bartay aaminaada wax iimaanka inuu yahay wax aamino wax mucjizana oo sameeynaa iimaanka sidoo kale wuxuu bartay in waxa oo ninkan u dhimanayo oo Nabi Maxamed alayhi salaam inuu yahay rasuul xaq ah oo xagga samada laga soo diro oo rasuulnimadiisa cadda waxyi ah iyo sidoo kale qofka inuu u dhiman karo qadiyad sababta ninka waxa lagu dilay asxaabiga Allah raali kana qadiyada lagu dilay islaamnimada lagu dilay marka saddex arim oo bartay markuu niyad oo bartay wuxuu tagay meel fagaar ah oo gaaladii Quraysh joogto wuxuu cadeystay sheegay inuu diintii gaalnimadii iyo nimanka asnaamtii caabudayay oo ka baxay oo diinta islaamka qaatay asagoon cidna ka cabsanayn waa hagaag waxaa kaloo jirtay Maxamed il markii Nabiyullaahi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee markii uu geeriyooday saxaabiga Saciid bin Caamir al-Jumhi oo noqday sida seef gasha ka baxday oo kale bal arintaas idin ka waran Saciid Allah karaale noqday asxaabigan jaliilka ah hadda maanta ka sheekeynayno rasuulka alayhi salaam oo la kulmay dhowr duulaan oo ka qayb qaatay waqtiga rasuulka macigiisa ayuu ahaa nin aad u wanaagsan oo ahaa oo asxaabta aad u qadariso Umar iyo Ali iyo labada khaliif aad u qiimeyn jirtay Allah karaale noqday dhamaantood wuxuu lahayd sifooyin ah ninkan nin adduunyo jacayl ah ma ahayn nin aad oo sifooyin u ahaa waxay markii waagii oo amiirka oo noqday Umar bin Khattab ayuu amiiradu u tagay oo wacdin jiray waxa kamid ah hadal aad u qiimo badan Umar oo maalin kamid ah u yimid wuuna la dardaarmay waxaan ku dardaarmay in aad Allah ugu cabsato dadkuna aad Allah ugu cabsato inuuna iskhilaafin ficilkaada iyo hadalkaada wuxuu ku khayr badan yahay kan ficilka sameeyo hadalka wuxuu u dardaarmay amiirka muuminiinta Umar bin Khattab Umar indhahaada ku hay muslimiinta ama madaxda u tahay kooda maqan iyo kooda fog iyo kooda dhow waxaana la jeclaataa waxa naftaada iyo ehelkaada la jeceshahay muslimiintana la jeclow marka dardaaran cajiib u ahay mar walba wuxuu la dardaarmi jiray asxaabtii Maxamed waa mahadsan tahay waxaa jirtay in marka Saciid uu noqday tusaale marka laga shidaal qaato sida qof marka tusaale marka loo soo qaato muuminiinta qof marka wuxuu ahaa adduunyadii marka ka hormar ka jeclaa aakhiro oo waxa kale jirtay in marka raali ahaanshiyaha dartii marka ugu tagay waxyaabo fara badan oo adduunyada la xiriiray iyo shahwaadkeeda waa hagaag Umar bin Khattab ilaahay karaal noqday dabcan talada uu qabtay oo muuminiinta iyo marka qaabkii
gudoomiye gobolka ee markaa uu noqday ee saxaabiga Saciid bin Camr al-Jumux. maalinta waxaa jirta maalin hadda dardaarankan hore oo soo sheegnay asxaabtii wuxuu yiri markaas uu yiri Cumarow Saciid yaa awoodo arintan oo kale yaa sameyn karo wuxuu dhahay adiga ayaa sameyn karo sababtoo ah waxaa ahayd rasuulka cali dadkiin walaaf aw raashidiinka ah oo diinta islaam markaas Cumar wuxuu dhahay waxaan wax kaaga dhigaya gudoomiye magaalada Xims Saciid aad ayuu u diiday wuxuu yiri ma ifidnaynaysaa Cumarow amiirul muuminiin fidna ma ifidnaynaysaa markaas wallahi maya ma jirto yiri aniga ayaa ii dayeysay dhibka marka wuxuu yiri Cumar wuxuu ka wada aniga mas'uuliyadda aad ii dhiibteen kaligay ma leegu cidleenay marka waan ku dhiibaa marka oo dhaartay qaliifkii Cumar Saciid wuxuu yiri hayo yiri markaasuu yiri Cumar bin Khadaab mushahar ma ku qoraa markaasuu yiri maya maxaa ka falaa inta yar aan baytul maalka ka qaato ayaa igu filan mushahar iyo waxa sheegaysan dani xaaje ka midaysan وهاج داود يال وحالته كسو كوبي لقيبتي كواد البرنامج كلي رادسن بودكاستي أو لواحد ليلة تضبط كان قصة مركا صحابي جليل كها سعيد بن عمرو الجمحي طبعا وحويل الدولا القيم لبعض أو تضبط كحاجة حدو الله أود الرهالك اللقطو عاد داود دولتان وحي تلاقي تصالح على طبعا وحلو قريب كرتان قيبته هو فالدا تلي أنت مركا تضبط كحاجة الكل دولو قيبتي اللبعض قصة مركا صحابي سعيد بن عمرو الجمحي وحالتي إلى سدا إيوه لبتقلي baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan beelaadaadini